السلام عليكم maanta waxaynu ka hadlaynaa naftaada ma bedeli kartaa daruufaha iyo waqti xaadirkan waxa aad ku sugan tahay dadka intooda badan waxay dareemaan inaysan ku qanacsanin noloshooda hadeerantid inaad u baahan tahay waliba qofka aad tahay wad bedeli kartaa waana nasiib badan tahay waayo waxa tahay qof garanaya heerka naftiisa ay taagan tahay isbedelka weyn wuxuu u muuqan karaa murugo laakiin waa mid suurtagal ah haddii aad diyaar u tahay inaad samayso oo aad ku socoto hadaf waa inaad ogaataa mas'uuliyadaada shakhsiyadeed ma bedeli kartid daruufaha mana bedeli kartid xiliyadaha sidoo kale ma bedeli kartid dabaylaha laakiin waad bedeli kartaa naftaada taasi waa wax aad awoodo adigu waxa tahay qofka geesinimo leh waxa uu aaminsan yahay kana xoog badan waxa uu arko sababtoo ah waxa tahay milkiilaha iyo hindisaha riyooyinkiisa nololeed macna ma laha haddii aad rumayn kari weydo hal oo ka mid ah riyooyinkaaga sababtoo ah riyadaasi waa hal shay oo ka mid ah wax soo saarkaaga maskaxeed hadda ayaad soo saari kartaa mid ka fiican kana tayo wanaagsan ee noqo mid mar walba ku qanacsan quwadiisa qasam ma mar walba inaad noqoto qof saxan had iyo jeer waayo guusha ayaa ah mid ku xiran qaladaadka لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال